Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your English teacher, Khalid Yunus Asman. Welcome to lesson 3. Kusoo dhawo casharkaygii saddexaad, casharkaygii taxana ahaa ee aynu ku dhisaynay qaybta speaking-ka. Today, maanta waxa aynu dhigan doonaa qof baad kulanteen, wada hadasheen, danihii aad lahaydeen baad kala dhamaysateen. Hadda waxaad rabtaa in aad socoto ama hadalkii aad soo dhamayso ama aad ka tagto. Marka qaybta horeysa waxaynu ku eegi doonaa cudurdaarka aad dhiiban karto hadalkaaga markaad soo xidhayso, maca salaameynta markaad qofka maca salaameynaysid, cudurdaarkaaga markaad u sheegatay kadib, aakhirna jawaabta aad bixinayso lacala haddii cudurdaarka lagu sheegto ama lagu maca salaamadeynayo jawaabtii aad u bixin lahayd. Intaas ayaynu casharka maanta ku qaadan doonaa. Haddii aad tahay arday cusub, fadlan subscribe to our family. Qoyskayga kusoo biir oo channelka subscribe saar and like na saar, asxaabtaana la wadaag insha Allah. Reason for parting. Okay, qofka markaad ka tegayso asbaabta aad u sheegan karto. Okay, waxaad ku dhihi kartaa qofka I have an appointment, balan baan leeyahay. Yani hadalkii baad soo xidhaysaa, danihiini baad kala dhamaysateen. I have an appointment, balan baan leeyahay. Waxaad kaloo dhihi kartaa I have a date. Date isagna soo kale waa isla balan, laakiin waa balan loogu talagalay laba qof oo mustaqbal wada rajaynaya. I have a date. Waxaa kaloo dhihi kartaa I have a meeting, kulan baan leeyahay, balan baan leeyahay. Waa isla iyaduna. Ama waxaad dhihi kartaa I have a class, xiisad baan leeyahay. I have another program, qorsho kale, program kale ayaa meel ii yaala. It's getting dark, habeen ayaa soo galaya, yani gobolkii baa sii dhacay oo dhulku waa sii madoobaanayaa. Aynu mar kale isku imanaad dhihi kartaa. Waxaa kaloo dhihi kartaa it's much colder outside, dibaddu aad bay u qabowdahay. Yani qofkii baad rabtaa inaad hadalkii u soo xidhxidho. Kadib hadalka maxaa ku xiga, maxaad raacini. Okay, it's getting dark and waxay noo sii gobolkii baa sii dhacaya. Kadib maxaad ku oranaysaa maca salaameynaysaa. Waay, hadda qaybtii labaad aynu gudbaynaa maca salaameyntii. Marka aad maca salaameynayso qofka maxaad ku maca salaameynaysaa, maxaad ku leedahay. Waxaad dhihi kartaa inta uma baahna Soomaaliga inaan ku macneeyo, saa uu yahay uma kugu sheegay, ana saa uu yahay baad u isticmaalay. Hadda waad isticmaashaa oo intan macnaheeda waad garanaysaa. Bye bye. Bye ayaad ku dhihi kartaa. See you tomorrow. Beri aanu is aragno. See you later. Hadda waynu is aragno. See you then. See you in the class. See ya. So long. So long for now. Okay, intaba waa maca salaamay ka dhigantahay. So long qofka hadduu ka yidhaahdo maca salaama, bye bye bay u dhigantaa. Ama haddii aad qofkan kala tegaysaan muddo gaaban oo kooban, waxaad ku dhihi kartaa have a nice day, maalin wanaagsan baan kuu rajaynayaa. Have a nice lunch, qada wanaagsan baan kuu rajaynayaa. Have a nice weekend. Weekend waa labada cisho ee aad fasax ka tahay shaqada ama iskuulka, khamiis iyo jimce ama sabti iyo axadba. Have a nice time, waqti wanaagsan baan kuu rajaynayaa. Have a nice vacation. Vacation waa ciid, fasax yani. Have a nice holiday. Have a nice trip. Trip waa fasax yaroo, waa safar gaaban. Have a nice flight. Safar diyaarad aad ku baxayso. Have a nice journey. Safar wanaagsan baan kuu rajaynayaa. Waayahay asxaabta, intaa haddii mar lagu idhaa wuxuu ku yidhi I have an appointment, balan baan leeyahay. Have a nice day, maalin wanaagsan baan kuu rajaynayaa. Adu maxaad ugu jawaabaysaa? Adu waxaad ugu jawaabaysaa thank you, mahadsanid. Ama waxaad ku leedahay the same to you, adna soo kale waxaan kuu rajaynayaa maalin wanaagsan. Have a nice day haddaan ku idhaa maxaad igu odhan? Teacher Khalid, the same to you, adna soo kale waxaan kuu rajaynayaa maalin wanaagsan. Waxaan ku idhi have a nice lunch, qada wanaagsan baan kuu rajaynayaa. Thank you, mahadsanid, the same to you unbaad igu leedahay. Ama intii aan ku idhin baad igu soo celin. Have a nice weekend. Have a nice weekend too. Intaa in aad fahanteen ayaan rajaynayaa. Cashirka ku xiga fadlan daawo. Waxaynu geli doonaa qofka marka labaad ee aad kulantaan waxa aad is oran karaysaan. Hadalkiina labaadi xagga uu ka bilaami karo. Thank you very much guys. Assalamu alaikum.